iyadoo uu dunida faraba'an ku hayo cudurka safmarka ah ee coronavirus Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu ku soo badanayo xanuunka COVID-19 ayaa haddana waxaa jira dadaalo badan oo lagula tacaalayo ka hortagga cudurkani. waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo bartay heerarka cilmiga caafimaadka iyo daryeelka bulshada, kuwaas oo aysan u saamixin duruufta wadanka ka jirta awgeed in ay ku shaqeeyaan cilmiga ay bartaan. Haddaba golahan ay ku midaysan yihiin gabdho Soomaaliyeed oo bartay cilmiga caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa waxay u taagan yihiin oo si iskooda ay isku xilqaameen in bulshadooda ay ka wacyigeliyaan dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunkan. Khubarada caafimaadka ay ku dareen cudurrada dilaaga ah ee dunida hadda ku cusub. goobaha ay howlaha wacyigelinta ay ka soo qabtaan tiimkan golaha xirfadlayaasha caafimaadka ee gabdhaha Soomaaliyeed ku midoobay waxaa ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ay ku sugan yihiin qoysas danyar ah oo dhibaataysan, qaarkoodna barakac ku ah gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, ayagoona ka saacida hadday ahaan lahayd afxirkii iyo jeermis dilihii iyo waxyaabo kale oo aasaasi u ah oo koronaha looga hortago. Fatima Ismaaciil waa gabar dhakhtarada, waxay ka howlgashaa gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waana aasaasaha golahani ay ku midaysan yihiin gabdho Soomaaliyeed oo soo bartay heerarka caafimaadka kala duwan iyo daryeelka bulshada. Fatima ayaan waxaan weydiin doonaa golahani waxa ay qabtaan, cidda ka saacida hawshani mutadawacnimada ama samafalka ay iskood isugu xilqaameen, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed aan ognahay in dhibaatooyin badan ay wajahayaan hadday noqon lahayd shaqo la'aanta dalka ka jirta, qaarkoodna shahaadadoodii jaamacad ay u xareysan tahay. Laakiin tiimkani gabdhaha da'da yar waxa ay ka doorbideen in ay shaqo la'aan sii ahaadaan, inay sameystaan golo ay ku midaysan yihiin bahda caafimaadka ee golaha gabdhaha Soomaaliyeed. xaqiiq waxaa markaasi ugu dhalatay waqti gabdhaha duruufo adag ku jireen oo aad u adkeed gabdhaha inay markaasi sameeyaan shaqooyinka qaar iyo meelaha qaar iyo waxyaabo qaar ka sameystaan. aadna difficult ugu ahayd waqtiyada shaqooyinka waqti 2017 oo weliba tacadiyada haweenka aad loo sameynayay oo gabar baaj wadato kale isbitaalada tagtoo kale xadgudub ahaan loogu sameynayay. waqtigaasi ay ugu dhalatay 2017 waxaa ogaaday hadday hal gabar tahay in dhibaato badan ay la kulmi karto, laakiin hadday gabdho badan yihiin inaysan dhibaato la kulmi karin. sidaas awgeeda waxaa sameeyey 2017 fikirkii iyo hadafkii iyo wixii iyo qaabka ku sameyn lahaa inaad diyaariyo. alxamdulillaah waxaa ii suura gashay 25 Maarso 2019 in si toos ah uu golaha hawada kusoo galo. sidaasna waxaa jirsanay 2 sano. waxaa sameynaa wacyigelinta kaamiyada caag dhan oo aan ku buufinay COVID-19 iyo waxyaabaha looga hortago inaan qaadno kaamiyada geynaa. saabuuno anaga television ku sameysana qaadna kaamiyada geynaa. intaba anaga markaas isku dardarno wax waliba oo haddana aan sameyno in dadka bulshadeena wax u qabano. waxaa kaloo ku darsanay in centerka la yiraahdo call centerka wasaaradda caafimaadka si rasmi ah bisha Maars ugu shaqo bilownay, kana wacyigelino bulshada oo 20 gabdhood ay gasho maalintiiba. halka 20kaasi gabdhoodna ay soo kala wacaan dadyo kala duwan rabo inay wacyigelin u sameeyaan, inay xaaladda xanuunka weydiiyaan, qaarkood isbitaalada loo diro. had iyo jeer waxaa taabanaa oo xasaasi noo ah muhiimadda markaasi uu dalka ku jiro iyo waxyaabaha uu dalka ku jiro. shakhsi waliba waxaa ugu baaqi lahaa inuu gabdhaha garab istaago, dhiirigeliyo. wax alaala waxay ka baqan yihiin inuu waqti walba ku caawiyo, uu gabdhaha garab istaag buuxa ka dhigto, uu garab istaagnaado, uu kabar qabo. xaalado badan iyo dhibaatooyin badan awgeeda dalka anaga usoo marnay. isku dayo weliba sometime in shaqada aan wadno naldhaho waxaa qabanaysiin maahan ka istaaga oo anaga aan weli fiirna inaan ka istaagno. hadday shaqo waayaan oo kale inaysan guryaha ku caajisin. tusaale kale anaga
6 days 7 days magaalada soo aadnaa maalinba shaqaa qabanaa maalin kaabaa diyaarinaa maalin kaab kala aadaa maalin riboodka kaab kasoo baxaa la diyaaraa activity oo waxaa arkaysa dad waxaa u malaysaa lagula xisaabtamaya dad bushaar qaatoo kale in lagula xisaabtamo shaqooyinka qabanayno xafiiskaas 7 days wuu furan yahay 6 days wuu furan yahay cafwan marka laga reebo jimcaha waa fasaxnahay 6 days waa laiskugu xisaabtamaa subaxii 3 saaca la furaa waxaa la xiraa 5 galabnimo waxaa intaas wax loogu qabanaa gabdho intaas waxaa wax loogu raadinaa feedbackyada qaar waxaa wax loogu raadinaa maxaa dalkii ku cusub dalka muxuu u baahan yahay maxaa qabanaa halkay u jihaysanaa sidee bulshada ugu dhex muuqan karnaa waad dareemi kartaa gabdho markay yihiin oo midoobaan aad inay u qurux badan tahay hadday maanta waxaa aaminsanahay wiilal iyo rag iyo dumar iskugu jiri lahaayeen heerka maanta labada sano aan taaganahay ee xafiiska aan yeelanay ma yeelan lahayn laakiin dumar keligood markay tahay way gacan furan yihiin oo wax walba way wada qabsanayaan wax walba way wada samaysanayaan tasa ku bogaadina waxaan ahay Aamina Abyan halka aad naga daawanaysaan waa Nation Media